wafdi ballaaran oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayna ku weelinayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Dhamaqa Mokanan madaxa xarunta dhexe ee xisbiga EPRDF mudane Shafarow Shuguda wasiirka arrimaha federaalka iyo horumarinta xoolo dhaqatada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Warqina Gabayo madaxweynaha deegaanka Oromiya mudane Lama Magarsa iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal ayaa soo gaadhay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga waxaana si weyn oo meeqaam sare loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya warkacayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar qaybaha kala duwan ee odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya kooxaha fanka iyo kooxda Bambeyda ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaana garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee magaalada Jigjiga si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiin sare oo deegaanka ka tirsan kadib soo dhaweyntaasi ballaaran ee lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayay garoonka caalamiga ee Gladwell Wall ayaa waxa intaas kadib wafdiga ballaaran oo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay booqdeen guryaha sida casriga ah loo dhisay ee ku yaala xaafadda Dulqabo ee magaalada Jigjiga iyagoona soo kormeeray dhismayaashaasi horumarineed waxaana intaas kadib wafdiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo hogaaminayay ay galeen xarunta madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagoona halkaasi ku soo arkay gaadiidka ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u soo gadatay sidii ay uga gaashaaman lahayd abaaraha soo noqnoqda ee booyadaha waaweyn iyo debdemiska waxaana intaas kadib wafdiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo hogaaminayay oo galay howlka shirarka ee xarunta madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo kulana kula qaadan doono odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya socdaalkan wafdiga ballaaran oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ayaa noqonaya socdaalkii ugu horeeyay tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed oo ku baxo waxaana socdaalkan uu yahay mid taariikhda baaldahaba ka galay